السلام عليكم سو dhawaada asxaabe waa tahay daawadayaal baarlamaanka ugu shaqada wanaagsan dunida baarlamaanka dalka Japan oo kamid ah golayaasha sharci dejineed ee ugu horeeyay dunida ayaa lagu tilmaamay in sida ugu wanaagsan ay ugu dhaqmaan xiroosaadkooda hawl maalmeedkoodana si wanaagsan u gutaa waxaana mudanayaasha golahaasi kamid yihiin kuwa ugu habsaanka yar ee aan fadhiyada golaha ka maqnaa sida sharciga golahaas u yahay waxa aroortii marka waagu bariyo ama ay 5 subaxnimo tahay soo gala shaqaale 100 ku dhow kuwaas oo nidaamiyay miisaska isla markaana hagaajiya kuraasta waxay shaqaalahani si habsamaan ah oo la cabirayo xitaa u dhigdhigaan koobabka si isleegna waxay u habeeyaan kuraasta mudanayaasha ku kala fadhiisanayaan qof kasta oo ka tirsan golaha baarlamaanka Japan waxa uu fadhiistaa meesha ugu horeysa marka la dhaariyo garsooruhu maxkamadda sare u tilmaamay qof kasta oo ka tirsan golaha baarlamaanka dalka Japan waxa loo ogol yahay alaab la mid ah ta mudanayaasha kala qaadan karaan laakiin wax ka badan looma ogola ma jiro mudana aan 8 saacadood oo shaqo qaban haddii aanu fasax ku maqnayn waa inuu rawaxo marka dadka shaqaalaha reer Japan ka rawaxaan xafiisyada iyo goobaha shaqada waxaana taas ku salaysan tahay habka shaqada ma dhici karto in la arko mudana ka tirsan golaha baarlamaanka Japan oo dibadda taagan waqtidooda ka socoto fadhiga mudana kasta waxa uu xidhaa telefikiisa gacanta waxaanu iska dhigaa wixii faralaab kala ah ee aanu la geli karin golaha sida dalladda ama ul haddii ay jirto kuwaas oo ku rito khaanad kamid ah kabarka golaha uu isagu haysto nambarada lagu furo habdhaqanka golaha baarlamaanka dalka Japan wuxuu aad uga soo horjeedaa golayaal badan oo ka jira dunida kuwaas oo mudanayaashooda marka la soo doorto wixii ka dambeeyay ay ku shaqeeyaan hab xeer jajab ah oo ka baxsan nidaamka isla markaana maamuusta iyo ixtiraamka la siiyay uga faa'iideystaan danahooda gaarka ah iyo xisbigooda mudanayaal tiro badan oo lacag badan ku qaata shaqadooda loo soo doortay ayaan maalin qura dadkii soo doortay kula noqon wax talo ah tixgelin iyo horumar midna waxaana inta badan la arkaa mudanayaasha danaysigu yahay ujeedada ay baarlamaanka u tagaan iyagoo difaacaya dana gaar ah sida heshiisiyo loo ansixiyo shirkado kuwa lagu taageerayo mooshinno dawladda wadato iyo kuwa la xiriira hay'adaha caalamiga taas oo ka dhigaysa in meeshii dhadhan ku jiro ay shaqadiisu runta ay tahay sida uu wax u wado markaad eegto daawade baarlamaanka Japan waa baarlamaanka ugu shaqada fiican dunida uguna shaqada wanaagsan Japanna waxay ka mid tahay wadamada ugu horumarka badan caalamka inta loo yahay taariikhda aadanaha waxaan soo jeedin lahaa Soomaalideena iyo caalamka kalaba inay sida Japan ku daydaan oo kale video like saar siina share gareeyo. Assalaamu calaykum.